dhacdada ugu xiisaha badan caalamka koobka adduunka waxaa ka harsan kaliya hal maalin. wadankee ayaa taageersan tahay adiga 32 wadan ee ka qayb galaya sanadkan dhacdada ugu xiisaha badan dunida. balse waxaa halkan kugu sheegayaa waxyaabo ka qarsoon oo aadan ka ogeyn kuna saabsan koobka adduunka ee ka furmaya dalka Qatar. sanadkii ugu horeeyay ayaa la ciyaarayaa koobka adduunka xilliga jiilaalka iyadoo kuleel badan uu ka jiro caalamka. waxaa la ciyaari jiray bilaha Juun ilaa iyo Julaay waqtiga xagaayada, waxaana lagu ciyaarayaa dalka Qatar oo hadda ka jiro kuleel aad iyo aad u fara badan. koobka adduunka sanadkan waa kii ugu qaalisanaa abid, lacagtii ugu badneedna ku baxday. dowladda Qatarna waa dalkii ugu horeeyay ee lacagihii ugu badnaa ku bixiya martigelinta koobka adduunka, dhisida garoomada ay ka dhacayaan ciyaaraha, wadooyinka iyo hoteelada. waxaana ku baxday wax ka badan 200 oo bilyan oo dollar. dowladda Qatar ayaana lacagtaasi bixisay 10 laab ayayna ka badan tahay dhanka qiimaha markii loo eego dalalkii soo martigeliya koobka adduunka. waa mamnuuc in taageero loo muujiyo LGBT-ga gudaha garoonka iyo banaankiisaba, maadaama dalka Qatar dalalka muslimiinta uu ka mid yahay. go'aan adag ayayna ka soo saartay dowladda Qatar oo ah in la tixgeliyo dhaqankooda iyo dhaqanka suuban ee diinteena. koobka adduunka sanadkan waa kii ugu horeeyay ee lagu qabto dal ku yaala bariga dhexe. dhammaan garoomada ay ka dhacayaan ciyaaraha koobka adduunka waxaa la geliyey qaboojiyayaal si kuleelka jira saameyn uusan u yeelan, dhibaato weynna uusan u gaarsiinin taageerayaasha iyo ciyaartooyda iyo dadka ka qaybgalaya koobka adduunka. waana laga taxadaray garoon kastana qaboojiyayaal ku filan ayaa ku jira, maadaama kuleel aad u daran uu ka jiro gudaha dalka Qatar. kaliya 8 garoon ayay ka dhici doonaan ciyaaraha oo idil koobka adduunka Qatar. garoonka ugu weynna wuxuu kaliya qaadaa wax aanan ka badnayn 80,000 oo qofood. waxyaabaha maanka dooriya uma badnaan doonaan sidii ay u badnaan jireen koobabkii adduunka ee hore ee ka dhacay dalal ku yaala qaaradda Yurub iyo Afrikaba. dalka Qatar wuxuu ka mid yahay dalalka ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah. dhaqanka dadka muslimiinta ah in la dhoorana waa wax muhiim ah. Qatarna oo ay ku wargelisay madaxda kala duwan ee mas'uulka ka ah dhacdooyinka ciyaaraha dunida. waa martigelintii labaad ee koobka adduunka lagu qabanayo Asia. Qatar waa wadankii ugu dhulka yaraa ee martigeliya koobka adduunka. baaxadda dhulkooda markii la eegana ma jiro dal ka baaxad yar Qatar oo martigeliya koobka adduunka. ciyaaryahankii ugu horeeyay oo asal ahaan Soomaali ah ayaa sanadkan ka qayb galaya koobka adduunka, wuxuuna matalayaa dalka Qatar, waxaana lagu magacaabaa Akram Cafiif. koobka adduunka 20 bisha November ayuu ka furmi doonaa dalka Qatar oo ah maalinta Axadda ee soo aadan. Qatar oo martigeliyaasha ahna ayaa qaadan doona ciyaarta ugu horeysa, waxayna wajihi doonaan dalka Ecuador. muuqaalkii maanta intaan ayaan ku soo koobayaa. haddii aad ka heshay like saar, siina share garay si uu gaaro asxaab fara badan. waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. tan iyo muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaane Allah. waa anigoo ah Juula Shaakir oo idin leh nabadgelyo. fadlan haddii aadan subscribe saarin channelkeena ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok-ga, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno.